لا qiimaha badan ee ku xiran bogeyga Cabdifataxnaani waxaad ku sarabaataan muuqaalka maanta muuqaalada hore ka gadisan yahay muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa hordhaca kulanka weyn ee maanta la ciyaari doona xulkeena qaranka Soomaaliya xulka lagu magacaabo Iswatinian Israa'iilka tartanka AFCON sanada 2023 hadaba intaan u guda galin xogta kulankaas waxaan ka hormari doonaa astaanta qarankeena iyo hidaha xulka qaranka Soomaaliya Tanzania ku sugan oo ku luuqay aan wada daawano حقك aad u maasantiin sida qiirada leh aad u daawateen muuqaalkaas sidoo kale walaal hanaga ilaawina like inoo saarto muuqaalkan aad ku taageerto xulkeena qaranka Soomaaliya sidoo kale la wadaag saaxiibada oo share garee muuqaalkan si uu saaxiibo badan u gaaro aragtida qaybta hoose inoo reeb xulkeena waxaad u rajeynaysid kulan ciyaareedka maanta xidiga xulka qaranka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay wuxuu ku sugnaayeen dalka Tanzania iyagoo tababar adag halkaas ku sameeyay waxaan iskugu diyaarnay kulanka weyn ee la leeyihiin dhigood Iswatinian tartanka Israa'iilka AFCON sanada 2023 ka dhici doona dalka Ivory Coast wiilasha Ocean Stars ayaana laba kulan oo saaxiibtinimo ciyaaray mid waa laga adkaaday midna barbadhac ay galeen taas ay ku tijaabinayeen awood ay u leeyihiin inay afka ciid u diraan dhigood Iswatinian ayaa sanada 2022 ugu dambeysay in kulan ay ciyaarto iyadoo ay dhowr kooxood ama xullo ay la soo ciyaartay kuwa ugu badan oo soo adkaatay halka kuwa kalena laga soo adkaaday waxaana kamid ah kulamada ay soo adkaatay Zimbabwe ay ka soo adkaatay sanada 2022 silada Angola ayana barbadhac la soo gashay xulka Iswatinian laakiin kulanka ugu dambeeyay xulka Iswatinian oo ciyaaray tartan wuxuu la ciyaaray xulka lagu magacaabo Mozambique rigorooyin 4-2 ay ugu adkaatay xulka Iswatinian ayaan guul gaartay ciyaar dhacday 18 July sanadii 2021 soo kale wiilasha Ocean Stars iyaga dhankoodana kulamo saaxiibtinimo ay ciyaareen inta aan la gaarin ciyaarta Iswatinian xogta ciyaarta hadii aan sheegnana ciyaaryahan Cabdisamad ayaa laga yaabaa in ciyaartan uu qayb ka noqon doonin maadaama uu dhaawac soo gaaray kulanka ugu dambeeyay oo xulkeena uu la ciyaaray kooxda Azam dhaawacan ayaa ahaa mid uu ka soo gaaray ciyaaryahanka dhabarka taasoo keentay inuu awood u yeelo waayo inuu dhameystirto kulan ciyaareedka Azam sidoo kale awood ayuu u lahayn inuu kulanka maanta u ciyaaro ciyaaryahan Cabdisamad sida wararka aan qaran ka helayno dalka Tanzania wiilasha Ocean Stars amaano u diyaar marka laga reebo Cabdisamad oo shaki badan laga gelinayo ciyaartan weyn waxayna diyaar u yihiin inay taariikh u sameeyaan dalka Soomaaliya ee qarankeena waxayna rabaan in sanadkan u gudbaan wareegga xiga ee tartanka Israa'iilka AFCON sanada 2023 markii ugu horeysay taariikhda kulanka ugu horeeyay wuxuu ka dhici doonaa garoonka Benjamin ee dhaca dalka Tanzania ka guri ahaan u ahaan doona xulkeena Ocean Stars halka kulanka kale uu dhici doona 27 bisha ka dhici doona dalka South Africa oo guri ahaan u ahaan doona xulka Iswatinian labadaas kulan ay xulkeena ciyaari doona hadii labada kulan soo adkaado wuxuu noqon doonaa taariikhda markii ugu horeysay Ocean Stars inay u gudbaan wareegga xiga tartanka AFCON sanada 2023 wad ku maasantahay ilaa dhamaadkii la soo gaarto saaxiib aragtida la wadaag xulku waxaad u rajeynaysid adigoo ku dhiirigelinaya like iyo share sidoo kale fikir qurux badan ayaa qaybta hoose inoogu reeb walaal waxaan ahay Cabdifatax Abdirashiid Abu Karnaani dhiirigeliya ciyaartooyda Soomaalida